subax wanaagsan daawadayaal halkan waa Bilan Radio ku soo dhawaada wararka maanta aan idin haynana waxaa kamid ah ciidanka dawladda oo toogtay nin al-shabaab ka tirsanaa isla markaana dil u geystay ganacsade caan ah beesha caalamka oo shuruud adag ku xirtay bixinta dhaqaalaha ay ugu talagashay doorashada Soomaaliya haddaba ma tahay shuruudaas mid dawladda Soomaaliya ka soo bixi karta Ra'iisul Wasaare Roble oo soo gunaanaday safarkiisii uu ku joogay Dhuusamareeb sheegayna in galmudug bilaabi doonto doorashada aqalka hoose waa magaalada xigta ee uu tagi doono Ra'iisul Wasaare Roble fataadihii wabiga Shabeelle ee Jowhar oo sabab u noqday sare u kaca qudaarta qodobadan iyo kuwa kale ayaan idin haynaa u diyaar garooba wararka maanta ee Bilan Radio isku soo noqod wanaagsan subax wanaagsan mar kale daawadayaal halkan waa barteena Facebook fadlan hadaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo like saar bogeena muuqaalkana si share garee si asxaabtaada uu gaaro una helaan wararka maanta ciidamada dawladda ayaa toogtay nin ka tirsanaa ururka al-shabaab oo ay sheegeen inuu dil u geystay ganacsade caan ah oo xalay lagu dilay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ganacsadaha la dilay oo caan ka ahaa degmooyinka Wadajir iyo sidoo kale Dharkele ayaa ahaa dhakhtar sida la sheegay waxaana ciidamadu sheegeen in marka dilka uu geystay kadib ninkan ka tirsanaa ururka al-shabaab uu damcay inuu baxsado isla markaana ay saleen ciidan dawladda ka tirsan oo rondo ku jiray isla markaana lagu dilay degmada Dharkele ee gobolka Banaadir waxaana ugu dambeyn suura gashay in dagaal dhaxmaray shaqsigii ka tirsanaa al-shabaab iyo ciidankii dawladda in ugu dambeyn la toogto ninkii al-shabaab ka tirsanaa waxaana faahfaahin ka bixiyay sarkaal ka tirsan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya kaas oo sheegay in ay sameynayeen howlgallo isla markaana arintan ay sidan ku dhacday waxa dhacday in ay maqribkii ay soo weerareen cadowgu nin masaakiin ee ku ganacsanayay goobtiisa ganacsiga in ay dilaan ka bacdina ciidanka mujaahidiinta ah ee ka shaqeeya saldhigga Dharkele iyo Wadajir ee qaybta galbeed ayaa gurmad isku arursaday si ay u soo qabtaan cadowgii dilay dadkaas qofkaas masaakiinka ee ku ganacsanaya goobtiisa ganacsiga way ka daba tageen waxayna ugu tageen guri uu arar uu ku galay dhexdiisa ayuu ka dagaalamay waana lagu dilay beesha caalamkana waxa ay shuruud adag ku xirtay bixinta dhaqaalihii ay ugu talagashay doorashada Soomaaliya saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya taageera ayaa shuruud adag waxay ku xirteen dhaqaalaha ay siinayaan Soomaaliya si loogu qabto doorashada gaar ahaan dhaqaalaha loo qorsheeyay doorashooyinka ee hore beesha caalamka u ballan qaaday Soomaaliya inay sii doonto si loogu qabto doorashooyinka dalka ka dhacaya qoraalo loo diray Ra'iisul Wasaaraha madaxweynayaasha dowlad goboleedyada guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa waxaa shuruudan ku xireen bixinta dhaqaalaha ee doorashada ee beesha caalamka safaaradaha Mareykanka Ingiriiska Norway oo qoraalkan soo diray ayaa waxa ay dalbadeen in qaybta ugu horeysa ee dhaqaale bixinta marka ay muuqato doorashada in si habsami leh ay u socoto kana bilaabato 3 dowlad goboleed waxaa sidoo kale la sheegay in ay ku dareen qoraalkooda lacagaha khidmadda musharaxiinta xildhibaanada lagu soo shubo bangiga dhexe ee Soomaaliya si doorashadu u noqoto mid la isku haleyn karo lagana taageeri karo sidoo kale qaybta labaad ee dhaqaale bixinta ayaa noqon doonta markii 3 maamul goboleed laba meel lagu qabto doorashada dhammaan golaha ay ka dhacayso doorashada dawladaha Mareykanka Ingiriiska iyo Norway ayaa sheegay inay bixinayaan lacagta dheeriga ah oo gaaraysa 3.7 milyan oo dollar oo ay dalbadeen xafiiska Ra'iisul Wasaaraha iyo guddiga doorashooyinka heer federaal wahagaag weli wararkeena maanta ee Bilan Radio ayaa daawanaysaan Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa soo gabagabeynaya safarka uu ku joogo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda u ah maamulka Galmudug
xalay waxaa magaaladaas loogu sameeyey munaasabad casho sharaf ah oo ra'iisul wasaaraha lagu sagootinayay isaga oo sheegay in safarkii uu ku joogay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda u ah Galmudug uu ku soo dhamaaday guul isla markaana la filayo in la bilaabo doorashooyinka oo la dardar geliyo waliba sida ugu dhaqsiyaha badan maamulka Galmudug ay noqon doonto maamulka ugu horeeya ee bilaabo doorashada golaha shacabka sida uu hadalka u dhigay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ku guuleysanay arrimihii aan halkan u imid iyo dhammaan wadatashyadii na dhex maray anigii iyo walaalkay madaxweyne Axmed Kaariye Qorqor. arrimahaas oo si wanaagsan oo kal iyo laab ah loogu soo gabagaboobay halkan magaalada Dhuusamareeb. arrintaas oo ka dhalatay halkan ayaa waxaan rabaa inaan u sheego jawaabta ka soo bixi doonto inay farxad u noqon doonto dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo dhammaan shacabka Galmudug. intaan markaan kaga baxo saad la socotiin Galmudug caqabado yaryar ayaa qabsaday isbuucyadii u dambeeyey taasoo ay keeneen kooxo ama group aan ka shaqayn nabadda. runtiina aad ayaan uga xumahay in Galmudug lagu dhex arko dad carqalad ku ah midnimada dowladnimada iyo jiritaanka Galmudug. haddaan nahay dowladda federaalka waxaan naga go'an cid kasta oo isku daydo oo Galmudug ku daydo inay caqabad ku noqoto jiritaankeedii kana hor timaado midnimada iyo dowladnimada Galmudug inaan gacan bir ah ku qabanno. dowladda Soomaaliyeed dowladda federaalka ma aqbalayso mana aqbali doonto cid kasta oo ka hor timaada nabadda Soomaaliya. وهجاج داود يا الولي وركا بلان أي داونسان هدي أدنى لجوكت أياد هاتسان تهاي مركان وحن إيجينا مقالة جوهر عاصمة دوا مامل كير شبيلة ولي وحايلة دالا داعي ساحة لها فتاة يدو فتاة وبيجي الشبيلة أي جوهر أوجستين سامينو badan waxa la soo sheegayaa in hadda sar u kac ku yimid qiimaha qudaarta la kala siisto ee suuqyada magaalada Jowhar kadib markii dalagyadii inta badan la filayay inay soo go'aan aysan soo go'in taasna ay sabab u noqotay fatahaadihii oo biyihii beeraha laga celin waayay taas darteedna aysan soo go'in sidaa darteedna beeraha soo go'o ay yihiin kuwa aad u yar haddana la kala siisanaya qiimo aad u sareeya. sidoo kale waxa adag kala dhoofinta qudradan oo meelo badan la geyn jiray sida magaalooyinka Balcad iyo Muqdisho iyo meelo kale oo qudradan loo iib geyn jiray. guud ahaan warkii aad ka daawanayseen Bilan Radio oo aan idin la socodsiinaya anigoo Cabdinaasir Socdaal oo anaga intaas waad ku mahadsan tahay daawade haddii aad nala joogtay ilaa iyo dhamaadka fadlan waxaan ka codsanaynaa in aad boggeen like saarto si aad noogu soo biirto una hesho warar joogta ah sidoo kale si share garay muuqaalkan si uu gaaro saaxiibo adiga oo kale mahadsanid.